السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ليال كسو دواد STY channel ما شاء الله maanta waxaan sameeynay waxa weeyaan hilib steak on soo duubay ما شاء الله sidaas oo u jeedaan quruxdiisa sida uu eg yahay macaanka ka sii daran ما شاء الله marka hadeertan ayaan chickpeas aan ku daray marka chickpeaska waa digirta xumuska laga sameeyo sideedana waa cuni kartaa waa ka cuntada waa lagu darsadaa marka soosna waa ka dhiga kartaa waxa arta digirta lagu sameey karaa ما شاء الله marka si protein uga helno ayada iyo waxa maanta isku karin doona hilibkaas marka waxa weeyaan meeshaas waxa ku diyaarsaday basal iyo barbarooni saddex nooc waa u jeedaan maxay halkaas waxaan ugu diyaarsanay waxa weeyaan xawaash yar oo iska normal xawaashka iyo maraq maaji aha iyo sabiibkaas sabiib waaye iyo hilibkii steak ahaa oo la soo duuduubo farfar dheer laga soo dhigay iyo chickpeas waa digirtaas oo xumuska laga sameeyo daawasho waan hadda sameeynaa marka digirta sameeynaya waa kan chickpeas waa kaas ayadoo gasac ku jirto dukaamada everywhere lagu gadaa ma sha Allah marka hadda sameeynaa saliidi deena waa kaas hilibka ku daray saliid waa inay si fiican u kululaataa birta aad ay u dheer tahay hadii kale hilibka hadhoodii waa iska taqaaniino hilibka waa steak iyo adiga aan soo duuduubay marka hadhow aragti steak wuxuu ka noqonaa adeeg haduu dabka ku daaho marka waxa fiican inay aad birta u kulushahay saliid ku si kululaatay ma sha Allah hada xawaashkii iyo maraq maajkii yaraay ee qudaarta ahaan ku daray ma sha Allah markii ka dhamaado dhacanka siro dhalay markii ka dhamaado hilibka oo si fiican u qalalo ma sha Allah waa ka sidaas u gursado maraq maajkii yaraay hada markii hore xawaashkii waxaan ku daray si fiican hada u shiileena hilibkii dabka inuu ku daa lama rabo because dabka duu ku daa wuxuu noqonaa adeeg markii adeeg noqdo lama rabo marka xawaashka waxa ku jiray xawaajiga yar ee xawaashka waxa ku jira lemon yar iyo lime iyo jelly macnaha basbaas iyo liin yar oo la isku soo shiiday ayaa ku dhex jira xawaashkii hore marka hilibku inuu jilciyaan raba ma sha Allah aad hilibka markii liin taabato aad u jilca soo waa ka basashi iyo barbarooniga hadaan ka dabageeyay laakiin ma sha Allah anigu xawaashka isticmaalo iska simple midka caadiga ah kartina isticmaal kartiin ma sha Allah soo qurxanta u jeeda hadda basashi iyo hilibkiisa fiican isku dhaxgelina because already hilibku waa diyaar ma sha Allah waa kaas inuu dabku dahla ma rabo si uu soo adkaaniso hadda waxay ahayd waa ka gadina waa inaan gadiyaa meel gaar ah ku shubaa markaasna aan si aan u sameeyo chickpeas birti same ina isticmaalo waaye marka hilibkii hadda ka gura ilaa waxaan u baahanahay xawaashka caraftiisi oo birta wali ka carfayo iyo waxaan rabaa iyo hilibka caraftiisa iyo barbarooniga waxa rabaa inaan ku gaduudiyo aan ku sameeyo xoogaa wax yar digirti aan ku soo daro si fiican ugu sameeynaa sabiibkii aan ku daraa markaas ma sha Allah wax isku noqonay hadan macaan because digirtan badana waa artay biya ku jiro badana wax walba ku jiraan just waa ka baxsan biyaha ka soo miiraysa then ayadi sabiibkii waa kaas ma sha Allah hadarta waxaan ku dhex gadiyay hilibkii iyo qudaartii iyo macnaha barbarooniga hilibkii aan ku soo kor dar hadda waa isku walaaqa because waa ready waa diyaar marka ma sha Allah waxa ku fiican tahay sometimes marka steak yani sidiis kala u sameeyay aan saana igala macaan saana igala qorwaaqas jileec mujeeda hilib gacantas si u kala go'ay easy way mudeeda kale oo igala fiican yahay kana macaan oo hadhoodii digirna waa kula socotaa digirta protein waa ogna kuligeen ma sha Allah bariiska ku cuni kartaa kaligeeda cuni kartaa rootiga ku cuni kartaa anything aan bariiska siira marka hadda aan lagu cunaa so it's easy marka bariis yar lagu cunayo ma sha Allah quruxdeeda u jeedin saxankan waa ku shubo markaas isla arkeena macaanka wallahi ma sha Allah markaas hilib badan ama jecelin laakiin chicken ka jecelan laakiin markaan sida loo sameeyo macaanka ma sha Allah chickpeaski kulli waa kaas barbarooniga gabdhaha u fiican yahay vitamin uu leeyahay hilibka waa kaasa bariiskan ka bixi birti ma sha Allah quruxdiisa arag yisi ma sha Allah barbaroonigan waa healthy qof walba ogyahay inuu gabdhaha aad ugu fiican yahay qof walba cuno ma sha Allah healthy waaye cuntada waa carfiyaa uu qurxiyaa uu miceeyaa hadda saxanka yisi qofkii la soo dhigay iska qancaa ما شاء الله والله والله ومهتسنتين انت already subscribe هذه
thank you so much. intaan dhihin please subscribe si aad next video la socotaan. waa mahadsantihiin, like and share. Thank you so much. Assalamu alaikum.